إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان بين كترني وحين قادنيني عشرة كصاب سنابشا سقفك مسلم كعبادة دي سوقرت علم جادا أيقول له وات عبادة داسي لنا عاقبلك إلهي بأقبلك هاي لكن الشرع جوافقه درسكينا مع عشر كينا ما أنت وحكو سابسي هاي وحيابها برية صومك وهذا مهم تهين التدوينه وقادان سيبا دادك ماتيدا دادك أدقوا مودايا إنay aqoontii leeyihiin sidaada wax badan ba haddana dadku ama iska mashquulsan ama goobaha cilmiga ka fog yihiin nin su'aali soo diro aan eegayo xalayto ismaan lahayn dadku halkaas ay gaarsiisan yihiin xagga aqoon yaraanta wuxuu sheekho markaan xaaskayga habeenkii u tago ma intoon anigoo jinaabaysan salaada soo tukadaan kadib maydhanaya mise salaada ka horban maydhanaya jinaabada inuu ka maydhaa ay waajib taho salaadu had iyo jeer ay aanay ansaxaynin isagoo de qofku jinaabo leeyahay ama masaajidka aanu jinaabo la tegaynin intaa inaynu casharka iska wada qaybsanahay baan mooday laakiin dadku halkaas ay taagan yihiin hal yaabin marka waxay u baahan tahay in far waaweyn loogu qoro adigu haddaad tahay qof wax garanaya dad halkaa taagan inay jiraan ogow dadka qaarkood baa waxay dhahaan su'aalihii bay kugu su'aalo bilaa macnaa bay sheekh ku weydiinayaan oo waqtigii naga qaadeen yaa akhi aday bilaa macno ku tahay dad ay halkan u taagan tahay baa jiro jinaabada salaada ma lala tagayaa maraya oo ma lagu tukanaya marka haddii aad adigu intan garanayso dadka aan garanayn baa muhiima in loo sheego cilmigana waxa aad ugu sii baahan qofka jaahilka haddaynu ku soo dhawaano waxyaabaha lagama maarmaanka waxa ka mid ah tabiitu niya min al-layl habeenkii qofku inuu soo niyoodo haddaanu niyoon soomkiisii waxbuu ka noqonayaa xadiid saxiix oo Nasaa'i warinayo nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam man lam yubayyit siyaama min al-layl fala siyaama lah qofku haddii aanu habeenkii soo niyoonin soom uma jiro maalintii waa soomka faralka ah gelinka hore la niyoon karaa ka sunnaha ah waxaynu sixi lahayn niyaduna hadallo la yidhaahdo ma aha ee waa qalbiga anniyatu maxalluha alqalbu oo waa inuu qofkii go'aamiyo una roorteenu soomi doono markuu cashaynayo suxuuranayo afurayo intaasaa ku filan salaada markaad halkan imikaysa soo taagtay dee laguma soo riixin oo turunturro kumaad imanine qasad baad ku timi iyo inaad salaad tukato niyaduna waaba intaaba marka halkan waxaan xusaynaa daliil ma laha نويت صوم غد عن أداء فرض في لذا دير dad badan ay uba qabaan ba hadaan inta oranin inaanu soomkiisi ansaxayn arinta labaad waxa shardiya inuu qofku iska daayo wixii soomka ka jabinayo kuwan soo socdaynu sheegi doonaa laga bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa inta qoraxdu dam oranayso habeenku ilaa uu imanayo arintaasina waa waajib weeye sida aayada aynu marar badan akhriyayna ay sheegayso thumma wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl soomka bilaaba marka waagu dilaaco ilaa gabalku intuu dhacayo soomka wada ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha burinaya waxa ka galmada hadduu qofku xaaskiisa galmo u sameeyo iyada oo ay sooman yihiin labadoodaba uu ka buraya inay soo qalleeyaana waa waajib inay toobad keenaana waa waajib laba bilood inay soo soomaana waa waajib labadoodaba waa lagu leeyahay sida jumhuurtu qabaan hadday labadooduba sooman yihiin waxa xaaraana inuu soomka sii jabiyo si uu galmo u sameeyo ilaahay wuu ku ogyahay oo wuu ku arkaya inna rabbaka labil mirsad ilaahay dhabagal buu kugu jiraa waxaad u jeedo uu ogyahay marka arintaasina waa dambi weyn nabiguna calayhi salaatu wasalaam ninkii uu la hadlayay wuxuu ku yiri qoor xore haddaad kari weydana laba bilood oo xidhiidha soon haddaad kari weydana 60 miskiin waxsi marka qoortii imika ma jirta la xoreynayay labada arrimood oo kala weyn waxyaabaha soomka ka jabinaya waxa kamida manida qofku iska keeno biyaha taranka
oo isagu qasad uu leeyahay uu iskaga keeno noocay doonaysaba ha ahaato ficil uu isagu leeyahay dhinacuu doonayaba ha kaga soo wareego rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu maaragtay taa ka hadlayey waxa uu xusay qofku yatruku dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli xadiidkii bukhaari ee xadiid alqudsiga ahaa waxyaabuu ilaahay qofka ku ammaanay waxaa ka mid a shahwadiisa inuu ilaahay daraaddii uga tegayo marka haddaanu ilaahay daraaddii uga tegin soomkiisii waa kaasoo uu ka jabay saa daraaddeed qofka hadduu xaaskii la ciyaaro isagu markaa sababuu leeyahay saa ay kaga yimaadaan qallihii baa lagu leeyahay isaga waa maalinkaasoo qallaaya inuu dee toobad keeno haddii qofku uu ishubo waa samayn karaa dhunkasho iyo la dhaqan iyo ciyaar iyo waxaa laakiin inta badan man xaama xawla alximaa yushiku an yaqaca fiihi qofka seeraha ku warwareegaa khatar wuxuu ugu sugan yahay inuu ku dhaco baasha nafina waa daciifa waxay gaari kartaa meel aanad qabanayn marka albaabku haynoo kala xidhnaado halkaa qolo waliba gaarkeeda u khalaaweynaysa caaisha waxay leedahay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yuqabilu wahuwa saa'im wayubaashiru wahuwa saa'im walaakinahu kaana amlakukum liirbi bukhaari iyo muslim baa wariyey waxaan taa ku jirin waxaan loo yaqaana ixtiraamka hadduu duhurkii seexdo qofka biyii tarankaa ka yimaadaan soomkiisa waxba ma noqonayo waxa burinayo saddexaad cunista iyo cabitaanka qofku isaga oo u kasaya oo aan macnaha la qasbin oo aan isilowsanayn isagana soomkiisa waa jabaya sidaa ilaahayba aayadda dee cunitaanka joojiya buu waagu markuu bariyo haddii laakiin arrintu ay u dhacday isagoo aan u kasaynin soomkiisa waxba ma noqonayo qofka cuna ee cabba isagoo isilowsan soomkiisa ha dhammaystira buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa raashin iyo sharaab siiyo jaanis buu ka faa'idaystay lagulama xisaabtamayo qofka wixii aanu awooddiisa ka baxsan waxyaabaha qofka soomka ka jabinaya waxaa ka mid ah haddii uu dee biyii sanka iskaga shubo xadiidkii laqiid waxa uu nebigu ku yihi wabaaliq fi listishaaqi ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane biyaha sanka fiif dheh si aad xaggaa sare usoo maydho markaad weysaysanayso laakiin qofku markuu sooman yahay biyaha fiif odhan maayo intaasoo kunbuu maydhaya markaa wixii la odhan jiray sankoo biyaha lagu shubo iyo afkiioo lagu shubo inay isku mid yihiinba halkaa laga faa'iidaysanaya oo laga qaadanaya culimada waxay leeyihiin waxaa la mid ah cunitaankan iyo cabitaankan wixii qofka tamar kordhinaya dhiiggii uu isku shubay guluukoostii uu qaatay dawooyinkii faytamiinka ahaa ee qofka xoojinaya tamartiisa cunitaanunbay xisaabsan yihiin culimada qaarkood waxay ka dhigaan waxyaabaha buriya soomka inuu qofkii istoobo iskuma waafaqsano laakiin waa madhabaha qaarkood markaa inaad iska daysaa fiican oo aanaad dhiig iska shubin oo aanad istoobin khuruujan min alkhilaaf adigoo khilaafka ka baxaya waxa soomkii toddobaadoo jebinaya inuu ka soo baxo ruuxii dumarka ahayd dhiiggii dhalmada ama caadada way umushay hooyadii soomanaydba iyadoon laba kalifinoo heerkaa markay taagan tahay inay iska afurto ay tahay ila hooyo uur lahoo u dhowaatay inay dhasho waa la garan karayaa dhibkeedu halkuu gaadhsiisan yahay sharcigu kuma kalifin inay soonto ee waa inay iska cuntay soo qallayso laakiin hadday dhacdaba in dhiiggii dhalmada uu ka soo baxo ama ilmahaba uu kasoo horeynayey soomkeedii wuu jabayaa inay soontaana ma ansaxayo sidoo kale dhiiggii caadaduna waa la mid daqiiqadii maalinka u dambeeyey shantii mirre u dambeeyey maalinkii ay soo soomanayd ayuu dhiiggii caadadu ka yimi qad badala sawmuha soomkeedii waa jabay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka markuu qancinaya wuxuu lahaa alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum xadiidkii saxiixu lbukhaari ku sugnaa nuqsaanu diin waxaa ka mid ah dee ninkii isagiiyo soomkii wadunbay gabadhii kolba uu ka jabayaa kolba uu ka jabayaa wakti uu cibaado ku qaadan karaya iyadii ka maqan markaa kolka ay dhiiggaa dhalmadu ka socdo inaanay dhiiggaa dhalmada iyo kaa caadadu inaanay soomaynin oo aanay salaadana tukanayn buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xaydkiina wuxuu noo la mida nifaaskii macnaha
waxaa iyaduna la mid oo sideedaad oo soomkii ka jabinaya qofka inuu go'aansado inuu iska afro niyatul fitr saacada laga bilaabo waabana furay buu dhaano waa jabinayaaba soomka hala ii soo dhigo qasad uu go'aan buu ku qaatay dee niyadiisii buu joojiyey niyadiisii hore soomka uu soo socotay wuu buriyey waa rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam inama al-a'malu bin-niyat عملك وحلقوا تحقلي إنما صحة الأعمال منوضة بالنيات عملك النيات بكون صحة نية دي النية دي واكن سلقري ماشو كسارة صوم كيسوا كجتشبايا صومك وحيابو كجتشبايا وحكم إذا إلهي بأنه كم مجن قال لا قفكينو قالوا بابا دين تعاي إلهي بعاي رسولك عاي أفك أنتو كلا قاضبوا إذا بدرهوين وإنت على يكسبين قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرت لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا يوحوا لما إله يا يدي سير رسول كيسا كل ليليسا مركاسا ليدهين وانو اسكا كفتمين وما أنان كسينين وقالوا ذين بول هاي وحبها عذر دارانينا وقف كتشيس جيسي رسولك إلهي آياديس كو أفكا كلا قادو عاين محاضو مريس وكسي ويه إذا واحد ردد الله يدعوه أما إسلام كو لغا نقضو لغا بحو قول إيا فعل إيا قلبي بيت كستبها أهاته عملك وقفك كل احترو ويكلا قويساه إلهي بعد الله إن أشركت لا يحبطن عمله هذا قال لما كل عضو عدة دون يسبها هو عملك هاقي سو سعودي وبريا وشبيا waxyaabaha soo dhan waxay kamid yihiin waxyaabaha mudlaadka loo yaqaan ee soomka jabiya marka qofku waa inuu kala garto wixii soomka jabinaya iyo wixii aan jabinaynin iyo wixii sunnah iyo wixii falala waxaynu arki doonaa waxyaabo dadka qaarkood ay dareemaan ama ay u maleeyaan inuu soomka ka jabinayo laakiin aan waxba yeelaynin 10 iyo cadba waa la yaryaraystaa si aan loogu merganine maanta 8 qodob oo cagafta burisa أما عقفت الدميسة صومك سديد صاد لقيسة إن شاء الله تعالى وأنا أتكلم علينا إنسان صومك وحي كلا أن وحبي لينني يسرنا ياشي سنة دروس الدمين كو قادم دونا إن شاء الله وهذا ما أقوله وأستغفر الله أي نسنا سو دعين ضدك ولا له نمل والبتشوجا مركب دعيسان إذن كدعيسان قفك ولا لك يوم مقام دعية بالنبي يقولي لقفك صومنا الدعاء الله أقبل أبو الله مركب صومية مركب أفرا يبا ملك بأكتابنا أكتاجنا وحلاه إلهي دعاءها كأقبل أذوقنا أنت ولا لك أود دعيسة إن لأكبر لا مركب تاسنا وفرصة دي شانس هديت قلادا إعلام كوحي نجبه هنا يسي النجد دمان تاني يدد كنا مقانية ومضى إسلام كذبكوا هيستي معناها هن كانوا يراني كلي هان لها النقرن أذوقنا أنت هذا قرأ هكوش بني الدعاء dadkoo wada gaarsiin la wax lacag oo kaaga baxaysa ma jirtee waa ereyo kooban oo ikhlaas wato ilaahay inuu la hor fariisano marka aynu soo burburna ducada jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal